بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن داوديال صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo socdaan barnaamijkeena halkan waa channelkeenu kulana YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijkan idinku soo maqana waxa ka mid noqonaya amni darada ka jirta magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ka sii dareysa maalinba maalinta ka sii dambaysa way sii xumaanaysa mana jirto dawlad wax ka qabanaysa shacabka ayaa la gumaadaya oo la xasuuqaya waliba la dilaya dharaar cadna la baadaya oo hantidooda la dhacaya falaqanayaan daawadayaal ku sameyn doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kaleba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxay tahay xilligan in ay sameeyaan oo ay u dhaqaaqaan falaqanayaan sameyn doona siyaasiyiinta reer Muqdisho aan la hadalnay isla markaana aynu wax ka weydiinay amni darada Muqdisho ayaa barnaamijkeena saaxiibayaal daawadayaal idinku soo gudbi doona shacabka Muqdisho ma waxa ay mudan yihiin inay isku tashtaan oo iska celiyaan dadka amnigooda waxyeeleynaya mise waa in wax loogu qabtaa canshuurta ay bixiyaan maalin kasta sidoo kale daawadayaal waan idin soo gudbi doona xog arintaasi ku saabsan muuqaalo naxdin leh iyo sidoo kale dilal qorsheysan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa barnaamijkeenan ku dhex daawan doontaan qaraxyo waaweyn oo sidoo kale gilgilay caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale hareeraheeda ayaa barnaamijka iyaga daawadayaal ku daawan doontaan daawada meel waliba joogto soo dhawo muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ah xudunta dalka isla markaana xaruntii ay ka talinaysay dawladda dhexe ayaa waxa ay la ciirciiraysaa amni darro baasan iyo sidoo kaleba amni xumo shacabka ku dhaqan caasimadda ayaa waxa yihiin kuwa dharaar kasta dhadhamiya amni darada markaasiba saameynta xun ay leedahay shacabka Muqdisho ayaa maalin kasta waxa ay bixiyaan canshuur laakiin ma jirto dawlad wax ugu qabata canshuurta ay bixiyaan waxa ay shacabku yihiin kuwa markasta baaqu diraya hay'adaha kala duwan ee amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya mana helaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin iyo sidoo kaleba waxa ay ka mudan yihiin dadka xilka u haya kuna matala dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka ayaa sidoo kale ayaguna waxa yihiin kuwa amni darada qaba laakiin magaalada Muqdisho ayaa ugu sii xun waxaana ka dhaca qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan mudooyinkii la soo dhaafay caasimaddu waxay ahayd kuwa martigelinaya ama madal martigelinaysa shakhsiyaad kala cayn ah wajiyo kala gidisan leh amni daradana ka qayb qaadanaya kooxo la magac baxay ciyaal weero ayaa sidoo kale ku soo kordhay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxa ayna ka jiraan dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir walow ay ugu sii xoogan tahay degmada Kaaraan iyo sidoo kale degmooyinka kale sida degmada Dharkeenle iyo Wadajir shacabka Muqdisho ayaa la dhacaa hantidooda ayaa la boobaa sidoo kalena xasuuq ayaa loo geystaa maalin iyo habeen mana jirto dawlad ka jawaabaysa cabashada ay shacabku qabaan ama baaqyada kala gidisan oo ay shacabku dirayaan warbaahinada gudaha ka shaqeeya ayaa iyaguna waxay yihiin kuwa arintan isku shuqlay oo isku hoolay waxa ayna xilli kasta soo bandhigaan sida xaaladda Muqdisho ay tahay amni darada halka ay gaartay laakiin madaxdii dawladda oo arintan la raba inay ka jawaabaan waxa ay ka dhamaan laayihiin inay daawadaan muuqaalada ay soo gudbiyaan warbaahinada mana jirto wax ay ka qabtaan maadaama la doonayo in arinta tani ay si weyn kaga jawaabaan hooyooyin Soomaaliyeed ayaa mudooyinkii la soo dhaafay ku barooranaya wadooyinka Muqdisho waliba ay ilinta kaga dhamaanaysa ayagoo ooynaya aabayaal Soomaaliyeed ayaa sidoo kale la dilay oo caruur ayaa agoontoobay caruurtii ayaana waxa ay yihiin kuwa ayagu amni darada ka qayb qaadanaya maadaama ay koox isku bahaysteen oo ay amni darada ka qayb qaadanayaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo sidoo kale aabayaasha
ayaa haatan waxa ay tahay inay arrintan u tafaxiitaan sidii ay u soo afjari lahaayeen maadaama caruurtooda ay dhibaateynayaan shacabkii ku dhaqnaa caasimadda. dowladda federaalka Soomaaliya ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre ayaa hadda waxa ay ku dhibaateysan tahay soo xulidda golaha wasiirada ee ka mid noqonaya xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse, waxaana iminka jirta amni darrtii ugu xumeyd maadaama dowladda ay ku mashquulsan tahay arrimo kale. Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ee dhawaangalka ay diiradda saari doonto arrimo fara badan oo ay ugu horeyso amniga. Xamse Cabdi Barre ayaa dharaar kasta waxa uu Al-Shabaab hawada u mariyaa hadallo hanjabaad ah ama handadaad ah kuwii ugu cuslaa ayuuna u diraa, waxaana shacabka Soomaaliyeed uu ku dhiirigeliyaa in ay ka qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab si loo soo afjaro amni darrada baasan ee ka jirta Soomaaliya. qaybaha ay kala gedisan ay kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya looga ciribtiro oo laga suuliyo. amni darrada ka jirta Muqdisho waa wax aan laga aamusi karin isla markaana dadku ay badaaban karin, waxaana xilli kasta jirta amni darro tii ugu xooganeyd. maalin ayaa dadkii la dilaya, la dhacaya, weliba loo geysanaya falal ka baxsan bini'aadanimada oo argagax ku dheehan. habeenkii waa ka daran tahay oo dadku waxa ayba hurdaan wixii ka dambeeya salaada maqrib, xaafadahoodana kama baxaan oo ma gudan karaan xitaa waajibaadka Alle oo salaada cisho uma aadi karaan masaajidka si ay halkaasi isaga soo bixiyaan. shacabka cabaqdin iyo sidoo kale cabsi ayaa haysa maadaama arrintan ay ku sababtay amni darro xoogan oo dharaar kasta ay maqlayaan qof baa la dilay, qof baa la dhaawacay oo isbitaal jiifa. hooyooyinka Soomaaliyeed amaba waalidiinta waxaa iminka loogu baaqayaa in ay caruurtooda cishtaan oo ay caruurtooda wacyigeliyaan, shacabka ay dhibaateynayaan ay ka qabtaan. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku goodisay haddii ay qabato ciyaal weerar isla markaana ay dhigto xabsiga waalidkii soo daba kaca in ay iyaguna ku dari doonaan oo ay xabsiga la dhigi doonaan caruurtooda. tani ayaana waxa ay tahay sida ay tibaaxeenba dadka odorosa xaaladda ammaanka Muqdisho arrin mudan dhiirigelin, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya loogu sii baaqayaa in ay tani sii kordhiso isla markaana ay sii joogteyso xilli kastana ay la xisaabtanto waalidiinta maadaama ay iyagu kari waayeen amaba ay awoodi waayeen inay caruurtooda cishtaan oo ay gacanta ka qabsadaan. shacabka Soomaaliyeed oo birmageeda waxba galabsan ayaa gacantooda isku dilaya, dhanka kalena waxa ay martigelinayaan amni darro kaga imaanaysa Al-Shabaab. saacadihii la soo dhaafay qaraxyo xoogan ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan Muqdisho, sidoo kalena waxa ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. marka Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa martigeliyay laba qaraxyadaas ayaana waxa ay geysteen khasaarooyin xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. magaalada Muqdisho qarax xoogan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay degmada Kaxda oo kamid ah 17 degmo oo ka kooban yahay gobolka Banaadir. qaraxan ayaana waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow uu ku qarxay dad ayaga diyaarinaya qaraxa oo doonaya inay ku gumaadaan dad rayid ah oo ay dhex dhigaan. mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxaa loogu baaqayaa in ay arrintan soo farageliyaan oo si degdeg ah jawaab kaga bixiyaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa la fariistay dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saacado uun ka hor, waxa uuna kala hadlay arrimo fara badan oo ku gadaaman magacaabidda golaha wasiirada maadaama Xamse laga doonayo in 4 bisha nagu soo wajahanay Agoosto uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada ee cusub. la tashadii ugu dambeeyay ayuu wadaa shacabka Muqdisho iyo sidoo kaleba siyaasiyiinta odorosa siyaasadda dalka ayaana waxa ay ku baaqayaan in la soo dhiso hay'adaha kala duwan ee dowladda dabadeedna uu hagaagi karo amniga. waa sida ay iyagu qabaan oo ay u qaadaan dhigayaan. wasiirkii amniga ayaa la magacaabin, taliyaashii ciidamada ayaanan ilaa iyo hadda la bedelin, taasina waxaa la leeyahay waa tan ugu wacan amni darrada baasan ee ka jirta magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loogu baaqayaa in uu xilalka ka xayuubiyo taliyaasha kala duwan ee ciidamada sida taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage, taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo sidoo kale taliyaasha kale sida
asluubta maadaama nabad sugidda uu dhowaan xilkii ka qaaday Yaasiin Faray dhowaanna uu dhiibay xilkaas Mahad Maxamed Salaad. haddaba daawada wixii warar oo ku soo kordha amni darada ka jirta Muqdisho barnaamijyadeena xiga ayaan ku darsi doonaa halkaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. daawada meel waliba aad joogto muuqaalkan like saarayna share garay inagu soo biir subscribe inoo sar channelka Faraga Marka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinkugu soo gudbino ku mahadsantahay daawashadaada tan iyo barnaamijkan kiisa kalena intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.